waxay ahaayeen gabar iyo wiil ajnabi kala ah gaarigan madowga ah gudihiisa ayay waqti ku qaadanayeen iyagoona halkaas ku sameynayay faaxishadii ugu weyneed abid laakiin ilaahay weyne sidoo uu doono ayuu yeelaaye labadoodaba nafta ayuu ka qaaday bulshadiina saakay waxa ay ugu dhex tageen gaarigan gudihiisa iyaga oo markaasi qaawan oo mid kamid ah uusan dhar wadan subxaanallah waxaan rabaa inaan kula wadaago dhacdadan argagaxa leh ee maanta geyiga Soomaalida sida weyn looga hadal hayo balse intaanan guda galin fadlan muuqaalkan like saar si uu saaxiibo badan u gaaro una share garay saaxiibada Facebook kugu helaysa aynu helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale qaybta hoose ee commentigana waxaad inoogu reebtaa aragtidaada ku aadan qaabka dhalinyaradan sharafta lahaa markaas uu ilaahay qaatumadoodii meeshii ugu xumeed markaas uu ku dilay waliba iyagoo gaarigan dhexdooda ku sameynaya wiilkan iyo gabadhan ajnabiga kala ah arin argagax la soo dhawaada saaxiibayaal mar kale halkan lagu xoonsan yahay ee aad arki kartaan waa bartamaha magaalada caasimadda ah ee Hargeysa halkan goordhow waxa ka dhacay qiso argagax leh oo ay badi dadku ka argagaxeen kadib markii gaarigan madowga ah kalarkiisu waa madow bensel madowbana waa saaran yahay cid ku jirta lama ogeen waxaana mar qura lagu arkay laamiga weyn ee magaalada Hargeysa laamaha amniga ayaa halkan tagay iyaga oo baaris dheeraad ah ku sameynayay gaarigan waxa uu wado marka hore gaarigan waxa looga shakiyay in halkan uu baakinka u yaalo oo markaasi saaran yahay waxyaabaha qarxa isla markaana ay bulshada Soomaaliland ay ugub ku noqotay laakiin gudaha gaariga markii darishada gaariga la furay waxa la arkay gabar iyo wiil gaarigan dhexdiisa ku meeday kaaga sii darane wax ay wateen oo dhar ah ma lahan wiilka waa midkan sawirkiisa aad arki kartaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waan kan dhalinyarada ah waxa lagu magacaabi jiray Xamse Axmed Yuusuf waxa uu kamid ahaa ciidamada madaxtooyada Soomaaliland ka howlgala gabar qurux badan ayuu soo watay wax uuna go'aansaday in uu waqti kula qaato gaarigan madowga ah gudihiisa maadaama gaarigan gudihiisa waxa ka dhaca ilaahay mooyee oo qof kale u jeedi karin laakiin ilaahay ayaa labadoodaba qaatumadoodii halkaas ku soo gabagabeeyay oo halka ay nafta uga wada baxday warbaahinta Soomaaliland ayaana laga codsaday in aysan arinkan gabi ahaanba aysan baahin oo ay ka gaabsadaan sida laakiin waxa la yaabay qisooyinka naxdinta leh ee waliba foosha xun ee ka dhaca Muqdisho warbaahinta Soomaaliland aad ay u bumbuuniyaan laakiin midda Soomaaliland ka dhacday iyo Hargeysa waxaad moodaa in gabi ahaanba ay ka gaabsadaan warbaahinta warbixintan qortay waxa ay ku soo gaabsadeen in wiilkan iyo gabadhan ay dhinteen wax dilan aan la aqoon oo kaliya laakiin xaqiiqda oo aan raadinay waxaan soo ogaanay in wiilkan iyo gabadhan ay halkan ku sameynayeen gaarigan gudihiisa ah waxyaabo aad looga qurxoon yahay waliba faaxishatii ugu weyneed ilaahay ha u naxariisto inkastoo ay ku geeriyoodeen wada laga qurux badnaa waxay ahaayeen gabar iyo wiil ajnabi kala ah gaarigan madowga ah gudihiisa ayay waqti ku qaadanayeen iyagoona halkaas ku sameynayay faaxishadii ugu weyneed abid laakiin ilaahay weyne sidoo uu doono ayuu yeelaaye labadoodaba nafta ayuu ka qaaday bulshadiina saakay waxa ay ugu dhex tageen gaarigan gudihiisa iyaga oo markaasi qaawan oo mid kamid ah uusan dhar wadan subxaanallah